مسؤولين كترسن حسبك معارضك ودني وشير جرايد كقبتي حرون طولله حسبك ودني مقالة بروحه أيها كهدلي مسؤول كترسنا حسبك سي وهرو الشيغي إنو كبحي حسبك ودني بلسما أنت كده واقعي إنو كلابتي قوان كاسي وحاني مسؤولين تاني إيدو تشيدين حسبك محافظك kulmiye waxaana ka hadlay kulan wareedkaasi xubno ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Togdheer Xuseen Kaahin Xayd Suldaan Daakir Xasan Khaliif iyo Cabdiqani Ismaaciil Mire oo sarkaalka sheegay inuu dib ugu laabtay xisbigaasi wadani waxaana ka mid ahaa hadaladoodii shirka jiraayadna wuxuu daaran yahay xubin qaali ah oo kan tirsanaan jirtay markii hore xisbiga wadani laakiin se kulmiye qalday oo been u sheegay beentii lagu yaqaanay kulmiye ee ku khaldan shacabka ama ogaaday waxa loo sheegay inaan ahayn waxba ka jiraan in uu dub u miida doorsaday maskaxdiisii iyo maankiisii kadibna la noqotay inuu dub ugu biiro xisbigiisii qaran ee wadani kulmiye bulshada ayaa ka dharagsan barnaamijyadiisa inaanay waxba ka rumoobin salaatu wassalaam ala rasuulillah ilaahi ba mahad subhanahu wa ta'ala awlan waxaan soo dhaweynaya Cabdiqani Ismaaciil Mire oo hore xisbiga istiqaal uga dhiibtay kulmiyana runtii warha la furay haddana ka soo noqday biiray xisbigiisii hore uu ahaa ku soo biiray waxaan ogsoonahay maan ka dharagsanahay xisbigan talada haya iyo xukuumaddiisaba dadka waxay u sheegaan inay istabedel keenayaan oo runtii ay keenayaan waxay maanta ku sugayeen wax ka duwan in hadduu saaxiibo Soomaaliya tiraahdo oo haddana soo tooso waa kiin weey kulmiye isbedel keeni maayo waxaan isbedel ku keenay kulmiye waa la tijaabiyay isagii xukuumaddiisaba waa la arkay xisbiga wadani waa xisbi runtii ku dhisan cadaalad iyo sinaan waa xisbi reer Soomaaliland oo dhan ay ka wada muuqdaan waa xisbi rajada maanta Soomaaliland gacantiisa ay ku jirto ilaahayna subhanahu wa ta'ala aan ka rajaynaa normeeyo kulmiye waxay naga filan aragtidiisa sida ay maanta mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye isku weerarayaan ay wax iskaga sheegayaan aniga oo kamid ahaa xisbiga wadani golihiisa dhexe macna weyn runtii istiqaala dhiibay xurgufiyada oo soo dhaxgashay awadeed markaan runtii eegay rooyay tiina runtii aan dhameysanay in wax weeye go'aansaday inaan wax weeye xisbigii hore aan ku jiray ee wadani inaan ku sii jiro oo aan la shaqeeyo taas aawad waxaan jeclaystay maanta Arbaca inaan runtii u sheego shacabka Soomaaliland inaan wax weeye xisbigii hore kamid ahay kuna jiro insha Allah ta'ala xisbiga mucaaradka wadani ayaa muddooyinkii u dambeeyay dadaal xooggan ugu jiray sidii uu taageero ballaaran uga heli lahaa guud ahaan gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Ali Baar Maxamed Boos TV caalamka Universal xarunta ololaha xisbiga wadani ee magaalada Burco